بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد شيخنا الشيخ عثمان مسعود aad aad u mahadsan yahay wuxuu noo jeediyey muxaadar runtii qayb ah ayna u baahannahay waa in lala hadlo mowduuca qofka khuseeya ee noloshiisa khuseeya si cilmiyeysan waa runtii shay aad aad cajiib ah haddaan adna dhowr qiso ku yar daro oo qaybtii ugu horreysay uu sheekhu sheegay ee ahayd yacni مسألة يعني غربة ومسوس قصو تيجي جدا إن أركوه السوداء إن المسلمة الصومالية ذهي وحنا نجيب تعبرين هاي هي تيجي ورث مثلا سألوا المركب وعلى الحجاب في عام حدتين وحن مودنا إن تنبو الصلاة مركب شافوا كل شيء قلبي وقف أو نولي هاي حتى الواب السوق على قلبي سلام gabadhaasi muslimada qalbigeeda ma markaasay tiri aniguna markaan xijaabka qaato waxaan isku haystaa boqorad dhulka korkooda socota waayo waxaan fuliyey allah samaawaadka iyo allada rabbiga u ah hadalkiisii iyo nebigii ugu soo diray ugu raacayaan ayaan fuliyey masale kaloo ku saabsan yani arrimahaas yani qof qalbigiisu nool yahay nin baa wuxuu naga sheekeeyay magaalada hooska ku taala ee wuxuu yidhi inan baa kasoo guursaday inan waddankeeda Soomaaliya markuu kasoo guursaday marka inantu afkeena waxaa la yidhaha gaay hablaha fariidada sooma inan fariida dhahay gaay marka dushooda waxa degan dabaqa labaad waxaa jira afkeeda waxaa narcoman iyo hal narcoman dadkan mukhadaraadka isticmaalo oo 100% iyo qaab 50% kuwa marka iyagu 50% marka waxay haystaan xijaabkan iyo waxaan inay dadkan ay nadaafadooda fiicneen marka walaalayaal jirtay marka maalin un bay xanuus waxba sila noqotay inantii baa guriga soo gelisay sidaa markay u soo gelisay oo hibay ka dhacdo marka naagtii gaala tahay markaasay tiri anuu marka adoo xijaabadan ku arko waxaan moodayay in aad tacbaan tihiin oo gurigiin iyo qurub iyo usra iyo weliga intaan adduunka ku noolaabay ma arag guri ka nadiifsan ka gudgoon oo ka fiican markaasay tiri diintiina markaas ibar markaa qofku haddii uu nool yahay wasaa weyn misaaladii kala sheekh oo ka hadlay ahayd qof markuu waddanka yimaado qiso kaloo runtii run ah oo dhacday magaalada Bergen ee Norway ka dhacday ayaa shacabka idinka la wadaagaya hooyo Soomaaliyada oo yar daaweyn ayaa waxay keentay odageedii marka odageedu ama garan meel ka yimid laakiin lama baahno weligii ma aragna qaado waddankii imika masuusha ku sheegayo markuu madaarkii ka soo degay oo soo fuulay diyaaradda u qaatay naag yani adigu waxa la aragtay qaybo jidka midoo weligii arag ay muuqato haddana madaarkii baastawark markuu dhiibay haddana taxi baa lagu soo qaaday gurigii markii la keenayna xaajadii baa TV u furtay indhihiisa intuu sabab qabseen buuri indhahaygii baan la soo doontay naar iskuulkii u tagay haddana wiilka bacdi markaas wuxuu arkay sidoo kale yani macallimiinta u jooga marka meesha aynu joognaa waa meel sidaas ah weeyaan sheekhuna runtii haddii ay muxaadaro wax tarayso ilaahay markuu qur-aanka ka hadlayo afalaa tadakkaruun afalaa tacqiluun yani marka lala hadlayo kuwa gaalada ee mushrikiinta xaqa diidan iyo kuwan iyaguna muslimiin yani waxa weeyaan ميرا وانتم بالهيدا كنتي وبنوجه الشيخ محاضر كنتي قيمة أنا أبغى هنا هاي إلهي سبحانه وتعالى وحي بالنساء نمكاس إنه وعفو أنا إن شاء الله تعالى وعدوتي وحنا الشيخ وعصنا إنه نصون ونورا وأيضا محاضرات حدوتي آلي أيضا وبا هنا هاي إن ذلك لغلا هدو وحمكا نرشو تحسن ee waxa weeyaan subaxdii markuu soo tooso qofku wuxuu cunayo wuxuu cabayo gaariga masiinka wuxuu ku shubanayo ubadkii iyo sida yani odayaasheedii hore sheekhu taawiil qabsaday odayaasheedii hore ninka caqliga badan marka odayaashii karta goyn jiray dood qaad waxay raaba jirta sooma oo marka dadka looga qaaday oo la siiyo odayaasha caqliga badan weligood ma cuni jirin ilmihiisa luu siin jiray marka nin wanaagsan sida hadda lagu yidhi dooqaad oo shaqaynaysa inaad qaadid markaas yimaado waxaan rabaa
inuu ilaahay carruurta iyo carruur saalixiin oo ka dhigo marka waxani waa wax qaldan sababed aniguna ma cuno ciyaalkaygana uma geeyo marka saas dadkeena hore marka ay ahayn qayb ka mid taasaan inteeda naga baahaya inaynu kusoo noqono runtii sheekha waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasaanka saaro waxaan runtii anoo ku hadlaya magaca masaajidkan insha allah waxaan rajaynaynaa inaad nagu soo mawqushe waayo mawaadiicda runtii aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay soo iguma racsanina mawduuc fiican somaa waa in ducayna sheekha waxaan u ducayna waalidkiisii dhalay ee waxbaray iyo culimadii insha allahu taala soo bartay isna waxaan leenahay miisaanka xasaanka saaro